13 Sebteembar sanadkii 2023 magaalo yar oo ku taala waqooyiga dalka Iran waxaa ka dhacday dhimasho aad u yaab badan. Nin waayeel ah oo 83 jir ah ayaa si lama filaan ah u dhintay iyadoo aanay jirin wax calaamad ah oo horey loo arkay. yacni ma jirin cudur iyo xanuun hayay oo uu geeriyooday. Ma jirin shil, mana la arkin wax sheegaya caddaynta dhimashadiisa. darisku waxay yiraahdeen waa qadar. dhakhtarkii baaray geeridiisana waxa uu sheegay in uu ku dhacay stroke kaasi oo sababay dhimashadiisa. waxa uu ku tilmaamay wax caadi ah marka da'daasi uu qofka joogo in stroke noocaasi ah uu u geeriyoodo. laakiin gabadha uu dhalay ninkaasi dhintay ee 83 jirka ah ayaa dareentay in wax qaldan ay jiraan. waxay sheegtay in aabaheed uu saacado yar ka hor la fadhiyay casho meel halkaas ah, isla markaana uu uga waramay arrimo yaab leh oo ku saabsan xaaskiisa cusub oo uu dhawaan guursaday. waxa uu doonayay in uu wax muhiim ah u sheego, balse ma uusan dhammayn hadalkiisii. si kadis ah ayuu u miyir beelay. dhulka ayuu ku dhacay, daqiiqado gudahoodna waa uu dhintay. su'aasha dadka maskaxdooda ku wareegaysa waxay tahay, muxuu aabe u sheegi rabay inanta? yaa ay ahayd haweeneyda noloshiisa sida lama filaanka ah u soo gashay? yaase ka dambeeyay dhimashadiisa? sheekadan waa mid ka mid ah kuwa ugu fooshaxun uguna yaabka badan ee la maqlay sanadadan. sheekada haweeneyda lagu naaneysay Black Widow 22 sano gudahood waxay guursatay 20 oday oo maalqabeena ah, mid kastana 2 bil marka uu qabo waa uu dhintay. haddaba maxaa ku dhacay? maxayse samaysaa haweeneydan? sideese lagu ogaaday? kusoo dhawaada barteena YouTube-ka ee Xuseen Xaaji Xasan. aniguna waxaan ahay Xuseen Xaaji Xasan. warbixintan iyo warbixino kale oo sirdoon iyo baaris lehba waxaad ku dhageysan doontaan barteena YouTube-ka. haddii aad nagu cusub tahay kusoo biir, muuqaalkana like saar. Kaltuun Al-Bakri waxay dhalatay sanadkii 1967 magaalada Saari ee waqooyiga dalka Iran ayaa ay ku dhalatay. qoyskeedu aad ayuu u ahaa qoys sabool ah oo aan waxba haysan, isla markaana noloshu ay ku adag tahay. nolosha deegaanku waxay ahayd mid adag, gaar ahaan gabdhaha waxaa loo arkayay hanti lagu hagaajiyo isla markaana lagu dabaro xaaladaha xun ee qoyska haysta. waxay qoysasku u arkayeen gabdhaha il dhaqaale oo ay uga bixi karaan faqriga. markii ay jirtay Kaltuun 11 sano 1978 ayay ahayd, qoyskeedu waxay ku qasbeen in ay guursato ninka weyn da ahaan si ay dhaqaalahoodu u hagaajiyaan. qiyaastii ninkaasi da'diisu waxa la qiyaasay inay ka badneed 50 sano. waxay diiday in ay guursato ninkaasi, waxana xataa ay isku dayday in ay ka cararto guriga, balse aabaheed ayaa si xun u garaacay ilaa ay ogolaatay guurkaasi. sanadkii 1979 ayaa wiil u dhashay, balse nasiib darro ilmihii waa uu xanuunsaday kadibna waa uu geeriyooday. ninkii qabay ee lagu daray ayaa kolkaas wixii ka dambeeyay ku xumaaday, isla markaana u geystay jirdil iyo tacadiyo ballaaran. isla sanadkaasina isaguna waa uu geeriyooday. waxauna u geeriyooday wadna xanuun ayaa uu u geeriyooday si lama filaan ah. Kaltuun waxa ay noqotay carmal ama garoob sida dad badan ay u yaqaanaan. da'deeduna markaasi waa 12 sano jir. waxay mar kale guursatay intii u dhaxaysay sanadadii 1984 iyo 1992 niman kala duwan ilaa 5 nin. waxa laakiin la soo wariyay in 2 nin ay si dabiici ah u geeriyoodeen ama ay u dhinteen, 3 kalena waa ay fureen. halkaas waa goobta ay ka soo bilaabanayso sheekada murugada leh, sheekada la yaabka leh, iyo sheekadan aan horey loo arag ee tixneed ilaa 22 sano. marka la joogo sanadkii 1995 haweeneydan oo lagu magacaabo Kaltuun, iyada oo ka shaqeynaysa maqaayad yar oo ku taala magaaladii ay deganeed, nin ku jira da'dii 60meeyadii ayaa u soo bandhigay guur si ku meel gaar ah.
marka la joogo wadamadaasi waxa la yaqaanaa wax la yiraahdo muuta. muddo 2 bilood ah ayaa guur lagu balamayaa. lacag badan ayaa sidoo kale lagu balamayaa in la isisiinayo. marka xilligaasi la gaarana guurku waa uu dhamaanaya. yacni in la yiraahdo waxaan ku qabayaa 2 bilood kadibna waa ku furaya oo lagu balamayo marka hore inta guurku uusan dhicin. sidaas ayaa ay ogolaatay Kaltuun, waxaana muddo 2 bilood ah ay wada joogeen ninkeeda cusub. 2 bilood waxa ay ku nooleed nolol raaxo leh sida gabar boqorad ah oo kale. balse marka heshiisku uu dhamaaday oo 2 bil la gaaray ama ay 2 bil dhamaatay, ninkii waa uu eriyay isaga oo siiyay oo kaliya wixii lagu heshiiyay oo lacag iyo hanti ahaa. Kaltuun gabadhan lagu magacaabo waxa ay dareentay in xilligaasi ay dareemayso bahdil iyo in ay weysay noloshii raaxada lahayd ee ay ku nooleed ninkii ay kula joogtay. markaas ayaa ay go'aansatay in aysan mar dambe ku laaban nolol saboolnimo ah. haddaba sidee ayay uga bixi rabtaa? waa su'aal kale. goobtan waxaa ka bilaabanaya qorshihii dilka ee la yaabka lahaa. sanadku waa sanadkii 2001. guurku meel gaar ah oo ay la gashay nin la oran jiray Axmed ayaa noqday mid wax walba bedelay, mid sheekadu ay ka soo alkuntay. ninku waxa uu ahaa nin bakhayl ah. waxa uu diiday in uu siiyo lacag ilaa uu heshiisku uu dhamaado. laakiin Kaltuun waxa ay bilowday qorshe cusub oo la yaab leh. waxay ka soo iibsatay dukaamada iyo goobaha ganacsiga dawooyin kala duwan oo leh sonkor, dhiikar iyo sidoo kale kuwa cudurrada kor u qaado oo kiciya. waxay samaysay isku dar qarsoon oo kiimikooyin iyo waxyaalahaasi ah kuwaasi oo keena wadna garaac iyo wadna xanuun degdeg ah iyo stroke u muuqda mid dabiici ah laakiin aan ahayn mid dabiici ah, kuwaas oo sababaya in qofku uu durba geeriyoodo si aan la dareemin oo aysan dhaqaatiirtu iyo kooxaha baaristu aysan uga shakin. marka hore waxay ku dari jirtay qadar yar oo si tartiib ah u xanuujiya qofka. marka uu xanuunka dareemo oo kalsooni ay ka hesho qofkina, waxay siin jirtay qadar weyn oo dawooyinkaasi ah kuwaas oo kiciya wadna xanuun isla markaana qofku uu geeriyoodo. Axmed oo ay guursatay sanadkii 2001 aan iraahdo ayaa waxa uu u dhintay stroke. qoyska oo uu ka dhashay Axmed waxay u arkayeen dhimasho dabiici ah. Kaltuunna waxa ay qaadatay dhaxalka iyo hantidii ay ku lahayd Axmed. tanina waxay noqotay nolosheeda joogtada ah ee ay ka macaysto Kaltuun. halkan 10 sano oo dilal joogto ah ayaa ka bilowday intii u dhaxaysay 2000 ilaa 2019. waxay guursatay rag waayeelo u badan oo hodan ah oo kali nool oo aan qoys iyo midna la nooleen. magaalooyinka kala duwan ayaa ay u wareegi jirtay si ay xiriiro ay ula sameyso odayaashaasi. geeri kasta waxa lagu qorayay ama lagu diiwaan gelinayay stroke iyo wadna qabad in ay sababeen. qoysku ma dalban jirin baaritaano meyd ilaa sanadkii 2011 kolkaas oo ay dishay nin wiilkiisu uu ahaa dhakhtar weyn. waxaa halkaasina wiilkii uu shaki ku galay balse cadayn ma uusan helin waqtigaasi. haddaba markii ay halkaas joogto waxa ay dad badan isweydiinayaan sidee lagu ogaaday, muxuu ahaa qaladkii ay gashay ee sababay in la ogaado haweeneydan lagu magacaabo Kaltuun. sanadkii 2023 waxay guursatay nin horey u ahaa sargaal ciidan oo da'diisu lagu sheegay in uu jiray 83 sano jir. Golan Reza Babayi ayaa lagu magacaabay. ninkan waa uu ka feejignaa sida ragga kale. marka ay isku dayday in ay siiso cabitaan, waxa kuwaas oo ay ku dartay dawooyinkii ay isku qasi jirtay. waxa uu ku yiri adigu cab marka hore. waa ay argagaxday. koobkiina si ula kaca
ayaa ay u tuurtay iyadoo ku dhifatay dhulka. ninkii waa uu ka saaray guriga iyadoo ka baqaysa in ay lacagta weydo isla markaana aysan u fulin qorshihii ay damacsaneed. waxay laaluushiisay shaqaale guriga gabadhiisa ka shaqaysa si ay daroogada ugu darto shaaxiisa isla markaana dawooyinkii ay damacsaneed ay u siiso. sanadkii 2023 waa 13 Sebtembar ninkii si kadis ah ayuu u dhacay isla markaana uu u geeriyooday wadna xanuun. laakiin markan gabadhiisu waxay horey uga maqashay shakigiisa ku aadan haweeneydii uu ka soo tagay. dhakhtarkii meydka qaaday waxa uu ahaa wiilkii ninkii sanadkii 2011 dhintay ee dhakhtarka ahaa. wiilkii dhakhtarka ahaa ee aabihiisu sanadkii 2011 ay dishay haweeneydan lagu magacaabo Kaltuun. waxaana la dalbaday baaritaan meyd in la sameeyo waxa loo yaqaano autopsy. baaritaankan waxa uu muujiyay qadar badan oo dawooyin ah in uu qabo ninkaas odayga ah isla markaana uu jiro wax u eg in la sumeeyay oo kale taas oo sababtay dhimashadiisa. haddaba marka ay halkan joogto sheekada isla markaana ay xabsi ku jirto Kaltuun oo baaris uu ku socdo kiisaskeedii iyo meydkii ugu dambeeyay ninka odayga ahaa ee 83 jirka ahaa isla markaana ahaa sargaalka ciidan. Kaltuun waxa la xiray sanadkii 2023 Sebtembar. markii hore waa ay diiday in ay ka hadasho wax ku saabsan geeridaas iyo kiisaska horeeyayba, balse cadaadis kadib waxa ay qiratay dilka ninkan odayga ah iyo dhowr kale oo ay iyadu sababtay. booliisku waxa ay heleen cadeymaha in ay guursatay wax ka badan 20 nin, halka 11 nin ay si dhab ah gacanteedu ay ugu geeriyoodeen sida lagu helay baaritaanadii la sameeyay. dhaqdhaqaaqyada lacageed oo weyn kadib geerida nin kasta waxay ahaayeen wax aan la fili karin isla markaana dhaqaale fara badan oo ay ka sameysay Kaltuun intii ay ku jirtay falalkaas la yaab kale. Agoosto 2025 maxkamad ku taala Saari ee dalka Iran ayaa ku xukuntay gabadhan haweeneydan lagu magacaabo Kaltuun al-Bakri 11 dil oo qorsheysan in ay ka dambeysay oo ay dishay 11 nin kadib markii ay qabeen 2 bilood kadib. waxaa sidoo kale 10 xukun oo dil ah ayaa lagu xukumay, laakiin hal nin oo ay dishay ayaa qoyskoodu ay cafiyeen. marka laga reebo halkaasi nina 10 kale waxay codsadeen in xukun dil ah lagu xukumo haweeneydan oo lagu magacaabo Kaltuun al-Bakri. sheekadan waxay ahayd sheeko fool xun oo runtii soo taxneed muddo 20 sano xiriir ah. waxaa sidoo kale lagu bartay in inuusan qofku si dabiici ah uusan u dhiman, laakiin markasta ay jirto sabab. waxaa sidoo kale dad badan ay isweydiiyeen sidee ay ku garan waayeen 11 nin dilkooda oo xiriir ah oo isku xiga in booliiska iyo ehladii dadkaasi aysan garan. wax la yaab leh ayay runtii ay ku tilmaameen. laakiin waxaa weli su'aal ah oo dad badan aysan si dhab ah u fahmin in haweeneydan lagu eedeynay in ay dishay 20 nin wax ka badan, laakiin inta la xaqiijiyay ee baaritaanada lagu cadeeyay ayaa waxay ahaayeen 11 nin. Kaltuun al-Bakri waxay ku jirtaa xabsi waxaana lagu xukumay xukun dil ah, qisaasta 10 nin oo ay dishay isla markaana ay qiratay markii la geeyay maxkamadda. waa mid ka mid ah sheekooyinka ugu la yaabka badan ee runtii anigu lafteeda aan maqlay. waa kiis baaris oo la ogaaday in kiisaskan ay soo socdeen 20 sano, laakiin waxa kaliya
halkan lagu ogaaday waxay tahay in qofku uusan si dabiici ah uusan isaga dhiman, laakiin markasto ay ka dambeyso sheeko iyo sabab. Kaltuun nolosheedu waxay ku bilaabatay dhibanimo, qof dhibana ah oo victim ah oo guur qasab ah la geliyay, balse ugu dambeyn waxay isku bedeshay wado u furtay in ay geysato dambiyo tixnaa 10 sano. bal adigu aragtidaada ku soo biir muuqaal bogeena Xuseen Xaaji Xasan ee YouTube-ka, muuqaalkana like saar. Assalaamu calaykum waraxmatullahi